maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay howlo dib u dayactir ah ee maamulka degmada oo kaashanaya dawlad goboleedka Hirshabeelle ay ku sameeyeen ceelbiyood hore ugu dugmay dagaaladii laga heshiiyay ee halkaasi hore ugu dhexmaray dadka ku nool deegaanka Koogaar ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna maamulka uu ka digay in dib loo duugo ceelbiyoodkaasi oo ay ku manafacadeen dadka deegaanka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha siyaasadda iyo amniga ee degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe Xuseen Muxyidiin Cabdulle ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta dadka ku nool deegaanka Koogaar ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Koogaar ee degmada Cadale hoos tagto ceelkii oo maaragtay laga shaqeeyay oo tuuladii la rabay in la dhiso muddo 8 bilood ana tuuladii in la dhisaa lagu howlanay laakiin ayadoo la isku raadihayo dhanka qaraska iyo la isku raadihayo iyo qaabkii wax loo qaba lahaay ayaa waxa dhacday in mar labaad hadana ceelkii dib maaragtay nimanka shalay ku dheelay ee mar labaad ay hadana ay tuugaan waxa la yiraahday marka haddii la arkay ceelkii tuugan ee xoolihii meesha ay ku baaba'ayaan iyo iyadoo wax la qaban karno tuuladii aan la dhisi karin asigoo ceelkii tuugan yahay biyo la'aan aan macnaha talaab aan la qaadi karin ceelkii hala dhisaa la yiraahdo mar labaad ceelkii maamulka Hirshabeelle iyadoo la dhiso haayo adiga niman maaragtay dan gaara kale oo un gaaban waa in gaaban wax weyn ma ahan ayaa yiraahdeen ma la dhisaayo haddii la isku celceliyeyna waxaa dhacday sheeg isku celcelintii nimankii waxa waaye waxay bilaabeen ceelkii awood in looga shaqeeyo go'aankaas ayaa la gaaray ceelkii la dhiso cidna aan loo xayirmin ceelkii markii laga shaqo bilaabeen nasiib darro waxay bilaabeen haddana inay falaan dhulkii waa dhibaatada ugu weyn oo colaadda hadda horseedayso oo maanta inaan ka hadlo oo qasabtay miidiyaha waxa taagan hadda waxaa la falo waayaa dhulkii waxaa laga fasho waayaa beero waa dhul hadda aan yaraynin oo isku xirto dhanka buurta iyo dhanka Isheege bari waa dhul isku wareegiisa hadda aan ka yaraynin 40 kilomitir isku wareeg la yiraahdo waxaa laga falaleeyahay beeraha lagu wadaa shaqadii waa ciidankii oo maamulkii ciidankii meesha jooga waa loo diray waxna waa ka qabanayeen ilaa hadda waxa waaye meesha ciidan badan ay joogo qabiilada qabiilkii kale tooda meeshii ka maqnay muddo 2 sano ah oo aan lahayn dib leeyay cilna meeshii degaysiin ayagana hadda ayagana abaabul dagaal ay wadaan oo uqaashiga culumiinta iyo waxgaradka iyo maamulka Hirshabeelle dawladda federaalka intaba aan ka codsaha oo ku soo celceliyaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh meeshaas waa in lagu baxaa gudooyinkan ayaa maamulka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay wadeen dadaalo ku aadan horumarinta degmada Cadale iyo deegaanada hoos yimaada degmadaasi